haddii horta shirki waa inoo furan yahay waxaan rajaynaynaa Soomaaliya meelo badan ay ku soo tashatay oo wadamo kale ah nasiib wanaag maanta Ilaahay baa mahad iska leh inaan ku tashano wadankeennii welibana gobol iyo degmo loo tashado ay dadku isku yimaadaan dadkii aqoonta u lahaa taladaana waa joogaan haddii dawladda federaalku ay tahay haddii guddigii madax banaanaa ee doorashooyinka Soomaaliya 2016 meeshii aadilaad ka talin lahaa ama cabiri lahaa waa joogaan waxaan rajaynaynaa in ummaddu si fiican u tashato nin walbana ra'yigiisu waa muhiim dadka wada tashiga waxaan ka codsanaynaa inay ra'yigooda oo caadilka ah oo Ilaahay la og yahay oo ummadan wanaag inay ku gaari karaan ay aaminsan yihiin inay cabiraan dadka walaalahooda oo aan nasiib u yeelan inay inta yimaadaan ra'yigooda la weydiiyana ayaga naftooda inay isxilqaamaan oo ra'yigooda weydiiyaan meesha loo badan yahay oo wanaaga Soomaaliyeed ku imaan karo sida tilmaantan Soomaali caadideeda sida ahaan jirtay Soomaali geed hoostiisa isku warsan jirtay marka madashan waxaan rajaynaynaa in si toos ah la isu warsado dadku waxayna ka shalayn dadku aysan ku dhibtoonin ummadan way daashay inay nasataan loo baahan yahay waxa ay idinkugu socdo wax kale ma aha inaan hawshan idinla dhex galo ama aan idinkala shaqeeyo waxaan u imid oo meeshaan la iigu soo diray in aan kor ka fiiriyo shaqada siday u socoto oo berri markii dhowrka madalood ee magaalooyinka iyo gobollada kala duwan iyo dawladda goboleedyada kala duwan ka dhacay markay go'aan soo gaaraan in aan la dhihin inaan waxoodii laga qaldin go'aankiinni aad soo gaarteen inaan laydinka qaldin ee saasuu ahaa inaan nidhaa meeshaan waxaa jooga aniga oo Baydhabo Kismaayo waa naloo jiraa xamar oo saddex madal oo kala duwan ay ka dhacayso waa la jiraa galmudug waa la jiraa guddigeen oo dhan sidaasaan isu kala qaybinay aniga waxaa nasiib u yeeshay inaan Baydhabo Jannaay imaado maanta waxaa halkaan nooga furmay gobolkan koonfur galbeed shirkii madasha wada tashiga ee doorashada 2016 alxamdulillah maanta anaga saakayaan nimid halkaan muhiimadeena waxay tahay waa mid in aan gogashaan ay noqoto gogol Soomaalida degan gobolkan koonfur galbeed dhinac walba ayagoo ku jira ay kasoo wada qayb galaan maadaama la yiri amaba aysan suurtagal ahayn hal qof iyo hal cod ayaa doorashada ay u dhici doontaa maadaama ay taasi suurtagal ahayn ayaa haddana waxaa laga maarmaan noqotay inay dhacdo doorasho Soomaalida iyo idil ay codkooda ku dhiibanayaan إن شاء الله وتعالى ما أنت ويفرنتي بري أيان سمين دونا أن أركي دونا هبابكي دتكيو إذا ليسو إسكوي ما هذا لوكال فريسان دونا وحان فيلنا يا إن تحيبا هبكي لو يسوسو دياريي إني كسواد قيب جلان gobolka degmooyinkiisa oo idil dad ku jira dhalinyaradii haweenkii culimaadudiinkii ganacsatadii kulli qof walba oo gobolkan degan codkiisii si uu soo gaarsiiyo oo uu uga sheegto habka u wanaagsan oo dantooda iyo danti qaranka ugu jirto sida ugu dhici lahayd doorasho geek ma indana soo qoynaya oo shirkii aayaha koonfur galbeed la ka talada fadi in uu nuunayto inta shirkaas la kufura ku qayb galan eed ma inka faraxsanaa aayahan inka taladaan ama una mustaqbalkan ku taladaan oo macnaha walaagi ama constitutionkii ama uu iska afgoran in la soo biyo eed inka faraxsanaa may kala jaray shirku may geek furay madaxweynaha koonfur galbeed ya furi si sharaf leh ya furi waan way sheegay oo lankasta ama qof kasta coday in isla baha kor oo saliim ah taasi eedan ka faraxsana waan way eed injeelna inuu cod fayl hanoo bah oo la ka dhaqaaleeyo koonfur galbeed
runtii shirka geekan informi wayba furay madaxweynaha koonfur galbeed mudane shariif xasan sheekh aadan saas oo kale wayba goobro ku hayeen gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka xaliim yarey saas oo kale wasiiradda haweenka qaranka Soomaaliyeed marwada ku qayb galay wasiiradda haweenka qaranka Soomaaliya oo guddiga task force-ga oo madasha wada tashiga heer qaranku mid hayti saas oo kale dhammaan ergooyinkii saddexda gobol ku casuumi oo maamulka koonfur galbeed ka kooban yahay Baybakol iyo Shabeellaha Hoose ku qayb galeen dhammaan ururada bulshada ku qayb galay ururada dhalinyarada haweenka sportska ganacsatada fanaaniintii culimo diinki dhammaan jaamacadaha dhaqaatiirtii walgoradka dhanka ku qayb galay runtii shirkan wayba ujeedadiis haytay in oo madal wada tashi oo la balansiiyay biila dambe December in magaalada Muqdisho ka dhigay kaasay oo go'aan lagu ku deeri doona qaabku isnagada la fado hanaanka lanku ku gudubo dawladdan hadda jarta maadaama ay suuragal waaytay in qof walba hal cod iyo qof doorashada qandheeda marka hadda wayba dadka ku ergooyinka ku doodo doonana qaabka anfayl oo Soomaali oo midaysan